bangiga caalamiga ah ee Amal Bank ayaa magaalada Ceerigaabo ka daafuray barnaamijka hodmiye kaasoo lagu kubcinayo ganacsigoodana kor loogu soo qaadayo dumarka magaalada Ceerigaabo. Munaasabadii lagu daafurayay barnaamijkan ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka degmada Ceerigaabo, qaar ka mid ah golihiisa deegaanka, mas'uuliyiinta jaamacadaha qaarkood, madax ka socotay Amal Bank, 100 dumar ah oo ka mid ah ganacsatada magaalada Ceerigaabo iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan madaxa barnaamijkan hodmiye ee magaalada Ceerigaabo Axmed Cabdulaahi Geele, madaxa suuqgeynta Amal Bank Cabdiraxmaan Jaamac Guhaad iyo Iid Maxamed oo ah madaxa maalgelinta Amal Bank. hodmiye muxuu yahay, muxuu qabtaa? waxa weeye hodmiye waxa weeye waa markiisa hore waxa weeye waa lacag cadaan oo kaasha oo dumarka ganacsiga yaryar leh bangigu ugu talagalay inuu ku maalgeliyo si ganacsigooda u kabco. waana qardo xasan oo ma uu jiro maxaan ku yiraahdaa waxa weeye wax faa'iido ah oo bangigu u saaray ama ka doonaya. lacagtaas bay waxa weeye si hafta ah oo aanay dareemin isaga soo celinayaan. waxaan cilmi baaris ku sameynay dhammaan deegaanada Soomaalidu degto, gaar ahaan qarankan Somaliland. waxaa noo soo baxday in asaaska iyo dhabartaba dumarka u yihiin ganacsiga. waxaanu Hargeysa caasimada ka furnay isbuucii hore wajigii labaad ee hodmiyaha. wajigii koowaadna Hargeysa waxaa ka faa'iideysatay ilaa 800 oo dumar ah. maanta waxaan halkaan isla joognaa Jimco ah in degmada Ceerigaabo ilaa 100 dumar ah ay ka faa'iideystaan adeegan hodmiye. adeegan hodmiye waa barnaamij lagu horumarinayo ganacsatada dumarka yaryar oo taan ula jeedo dhammaan dumarka ganacsiga dhexe ee lafdhabarta u ah bulshada Ceerigaabo ku jira inuu u furan yahay inay soo codsadaan. adeegan marka hadda daafurid iyo bixin buu isugu jiraa. annagoo ka duulayna sloogayada ah horumarinta qofka, qoyska iyo ganacsiga. hodmiye waxaa loo diyaariyay in lagu horumariyo ganacsiyada yaryar ee dumarka. labada shardi ee laga rabo waxa weeye in uu qofku dumarka ay ganacsi hadda asaasan leedahay, waa markan hodmiye ka hadlayno, isla markaasna ay soo booqato bangiga Amal, akoon xisaabeed ka furato, ay ku talagasho inay ganacsigeedana ku kobciso, bangigina ay kula macaamisho. qaar ka mid ah golaha deegaanka Ceerigaabo, madaxda jaamacadaha Sanaag iyo East Africa, gabadh ku hadlaysay afka haweenka, isuduwaha wasaaradda shaqagelinta gobolka Sanaag Marwo Faadimo Xaaji Xasan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad u soo dhaweeyay barnaamijkan. mahad celinaya bangigan Amal ama Amal Bank oo inoo soo diyaariyay barnaamijkan hodmiye ee ujeedadiisu tahay dhiirigelinta ganacsatada yaryar ee haweenka. runtii wuxuu ku soo aaday xilli aad u wanaagsan oo fursado badani jiraan. waxaana Ilaahay ka filayaa inuu noqdo barnaamij midho dhala oo kobciyo hodmiye ah oo haweenka dhaqaalahooda iyo qoyskaba kor u qaada. jaanis fiican bay idiin soo baxay, jaaniska ka faa'iideysano. say uga faa'iideysanaysaan? wax uga faa'iideysanaysaan dhaqaalaha laydin saari maayo ee Amal inoo wado aan ka faa'iideysano. anu kolba shaqsi baan ahay oo Amal xiriir fiican baanu leenahay. waxaan leenahay ka faa'iideysta jaanis idinku yimid gurigiinii oo maxaan ku dhahdaa fursad aad u qaali weeye. fursadda laga faa'iideysto. waan ugu hambaleynaynaa shaqada quruxda badan ee bangigu qabtay iyo waxtarka uu gobolka ku soo kordhiyay. daraasad Soomaalidu samaysay waxa la ogaaday 70% wax ka badan in qoysasku ay haweenku ku tirsan yihiin. marka mala daraasadaas ay qaateen. waxaan rajaynaynaa qoysaskiina iyo dadkiina iyo ganacsigiina inay anfacdo. run ahaantii kulli maalgelinta noocyada bay ka mid tahay noocan. sida halka xusteena waxa sheegteen inay tahay laga rabin wax dheef ah qofka qaadanaya. waxaan leenahay haweenka hablaha ka faa'iideysta. aan aad ugu sii dhiirigelinayaa maadaama hooyooyinka oo aad ay muhiim ugu tahay fursadani oo ayna aad uga faa'iideystaan. waa fursad aad iyo aad u qaaliya. marka insha Allah waxaan u rajaynayaa Amal Bank Ilaahayna u balaariyo waxooda
aadna waan uga mahadcelinaynaa. gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Ceerigaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur oo Amal Banki aad ugu ammaanay barnaamijkan maalgelinta ah ee ay ka daafureen magaalada Ceerigaabo isagoo ugu dambeyntiina maayarku halkaasi si toos ah ugu daafuray barnaamijkan. Amal Bank waa baan umadu leedahay waana baan alxamdulillaah dalka laga macaashay oo khayr qaba oo in badan wax badan taray ummaduna leedahay baanka uu ducaynayna waxaan leenahay waa mahadsantihiin hablaha ama dumarka ladin soo horreysiiyey waa laydin doortay waa laydinku doortay ammaanad iyo dadnimo annana waa la qabnaa farhayga ah waxaan see leenahay baankii si wanaagsan ula macaamila lacagtana iska celiya. waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceerigaabo.